حيرته واتحرجتي حلمها يسيدي وحيرته الكسيدة وشون ما يسيدي حولي يقود واضحة درسو واضحة ضيو حال فيه سبحانك يا عظيم بالوحى صوص عضا ايق Vous n'êtes pas sans savoir. Vous n'êtes pas sans savoir. L'étoile de la faïence. Depuis votre retour sous vos ordres. Sous vos ordres. En février 2020. 2020. سبحانك يا عظيم سبحانك يا عظيم سبحانك يا عظيم واللي حسوس قوليه إنه قلت من أنا حين يدور لقينا صار ظاهرية شمسة ظاهرية شمسة ظاهرية شمسة ظاهرية شمسة دنيا وسوق نيريس وعدوية وحسوا شيء حواها إسكت وناقة يسفر بالله يقول ده تيبا والله إنه حواها إسكت والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة واحدة لبرتين إن برنامج آدي حسب بدن إن نيجي دهيه أنا وحسد دالية وكمان قلت جبتي توس دمان أنت داودها لداونا يا أنت لداون دوتين وحنا وحنا جلسوا عنسين أبرتا فيسبوك أو لايفا قدال لو حتى داون دوتين أبرتا يوتيوب وحنا هاي أنت جبوت رير جبوتي قرب جوكتا أي أنت dibadda joogta iyo inta gudaha joogta waxaan leenahay inta bugtana Allah caafiyo inta caafimaad qabtana Allah uu siyaadiyaan leenahay mar waliba oo ducaynayna dadkeega waxaan leenahay ku soo dhawaada barnaamijkii Djibouti Toos iyo Xasan Daaliye caawna waxay horfadhiyo kulliba niman aad u wada taqaaneen Xasan Sheer oo qoraaweyna oo dadka reer Djibouti habeen iyo dharaar u heegan inuu madaragtay ummadaas uu ka saaro dibta iyo hawsha ay ku jiraan iyo ciilka ay la fooraraan ummadda reer Djibouti iyo dalkoogii oo hoos u sii socda halku kor uga socon lahaa waxaan xasan aan kugu soo dhaweynayaa kulliba barnaamijkii Djibouti Toos oo jimco waliba ay u yahay jimco taxane bulshada daawaneysana ay tahay bulsho aad iyo aad u qiimo badan xaggaaga iyo xagga reer Djibouti oo dhan dadkana daawanaya ee Soomaaliyeedna waxaan leenahay inta afka Soomaaliga fahmaysan waxaan leenahay ku soo dhawaada barnaamijkii Djibouti Toos inta afka Soomaaliga فهمنا كل لغة الصومالية وحير بكي غنين يكن كسر وهذا له غير جبوتي دمانو دانو حالنا هاي إلهي ما درت وقت في عميو نسيف في عن إلهي هنسيو أبغى كل دعينا هبين الدرار عاونوا وجمعة وهبين كل دعينا يا جماعة وهبين بكوي هاي هبين كعاون وهبين الجماعة وهبين كما درت عبادة ده آد بسر رئيسي وحالنا كسر وهذا برنامج كي توس جبوتي حسن كل يوم وحلقة قبرت واحد ونكسي إن أبو سوداء دكاجا ولا وذاكتي هبين يبدأ إنه واحد وهي جنت هاي ومدة ريد جبوتي كل يوم وضع نقضي وحوتي وضع درك الدبتيس درك جبوتي وحلا لي هاي النبض ينور بالله هي يهرب مر أتو بالله ومدة ريد جبوتينا سيد بدي درك الدبتيس هي تونا لكن والله سيدرو صلوا حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن وكل وهي وكل سلام يا ضد كنا داونا وسلامنا
waa sidaad hore u sheegtay waa jimco kastaba dadka waxaanu soo bandhignaa wixii kasoo biiray geeska Afrika gaar ahaan Djibouti iyo wixii macluumaad kale la qaybsanayna inuu haynaba ayaanu soo bandhignaa waa way soo salaamaya way soo dhaweey waa xalliya soo dhawaadana dadka maanta horaan u soo yar qadinay programkii dadka reer Djibouti baa xawday oo yiri xilli dambe ay nagu tahay xilligaad soo gashiin ee hore u soo yar qadima horaan u soo qadimna caawa kaas أدبر حسن أن كاجم حد عليا بعدام ودت كاجا هبالي دران أدوه جنتهاي ووحي كران كاجا إياه وحي تال كاجا إياه مسكح دادي أتسيني سيد ومدريد جيبوتي أتسين نبت سيد ولا تنما أدوه ريسيد مسكح دادي ونكسني إلهي إنه حكاجر جننا إنه وقت في عكسيه إنه لهي كادو ننشرا وتشوجا ودت كريد جيبوتينا أي دبجوك سيدا وعكس علينا حسن برنامج كيني ما شاء الله وحن قبل أمنا سوى شيء نبوه ريسيد يراعينا ترينك وهري وهكذا قدقنا نيجنا حسن ترينك وهري ما شاء الله waxaan galeynaa xasanow garba ciise magaalada garba ciise bal dhibaatooyinkii ka dhacay iyo xasuuqii ka dhacay sababta u dhacday iyo maaragtay dhibaatadii wixii ka dambeeyey iyo siday u dhacday kulliba faallooyin badan iyo waqti badan waan siinay waanan ku qasbannahay inaan siino dadkayaga dhibaatada ku dhacday bal arrintaasi faahfaahinteedii iyo ummaddu siday kula wadaagto barnaamijkaaga wanaagsan ku soo caasan xasan waxa weeyaan assalaamu calaykum mar labaad dadkana dhageysanaya waxaan leenahay horta garbaci wixii ka dhacay xasuuq buu ahaa xasuuq baa garbaciisa wixii ka dhacay arrinkaasi dadka lagu laayay magaaladaasi ee la xasuuqay dadka la laayay xasuuq baa ahayd xasuuqaana xasan oo anagii dhowr jeer anagu ka hadalnay sheegnayna arrintaasi tii u dambeysay dadka la laayay uma ahayna dhibaatooyin badan baa ka dhacay garbaciisa dad hore oo la laayay baa jiro odayaal hore oo la gowracay baa jiro oo la qalqalay arrimaha oo dhan anagu xasan waan ka hadalnay waana u soo bandhignay dadka laakiinse waxaan ku kala duwanayn ummadda waxaad moodaa dad badan meeshii farta loogu fiiqay inay qaateen oo ay iska qaateen laakiin anagu mowqifka iyagu wuxuu ahaa iyo arrinkaan hayno anagoo ka dhaqaaqayna mowqif uun maahine waxyaabahaan hayno anagoo ka dhaqaaqayno waxaan anagu dadka u sheegnay reer Djibouti inuu xasuuqu ka yimid Djibouti oo Djibouti laga abaabulay dhibta haysata garbaciise cundufay cadaytaba haysatay inay ka timid Djibouti oo wax Djibouti laga abaabulay tahay wax ciise abaabulay tahay wax madaxweynaha Djibouti ninka isku sheegay Ismaaciil Umar isku dhawaaqay uu abaabulay inay tahay baan dadka u sheegnay marka waxa weeyaan iminkana waxaanu xasan oo soo bandhigaynaa siday ku dhacday deegaankaas haddaba dadkeenu waxa weeyaan waa dad emotion ku kacaan weeyaan markaad egtid wixii markaas soo maray marka arkaan bay boodaan waxa weeyaan ninkani ii sheegeen dadka iminka baaha dadka waxa la laayay dadkani iyo dhibaatada ka dhacday garbaciisa iyo cadayto iyo cundufo waxay dhacday waa markii uu soo baxay go'aanka ah inaad deegaankaas lagu daro kililka canfurta markaaba arrintu dhacday uu xasuuqu dhacay dhibtuna ay ku bilaabantay dadka deegaankaas dega ee ciisaha dega iyo ku bilaabantay taana waxaan caawa u soo bandhigaynaa dadka siday arrintaasi u dhacday iyo ciddii ka dambeysay iyo siday tahay waxa weeyaan arrintaasi xasanow mar hore ahayd wixii la bilaabay annagu 2015 baan bilaabnay inaan qoraal ka samayno qoraaladii ku jira website-kayga #lanticaad ku jira qoraaladaasi #24 uu ku jira oo qoraaladaas waxaan ku sheegaynay arrimaha meesha ka dhacaya sida yihiin waxa socda waxa dhammaan ka hadli jirnay dadka uma muuqan laakiin maanta waa u muuqatay maanta waxa ugu muuqatay tani dambe sababtoo ah dadkii la laayay baa badnaa dadka la xasuuqay baa aad u badnaa waagii hore dad badan baa lagu xasuuqay mar baa jiro odayaal ilaa dhowr 20 oday lagu dilay baa jira halka dhowr 10 oday oo qaar ba la gowracay ma badnayn tiradu markaa laakiin tani maanta tirada aad u badnayd waxay u taabsatay dadka marka waxa weeyaan arrintani waxay saan sheegnay 2015 baan ka qaylinay oo nidhi war urura la sameeyo dacwada la sameeyo xaqalisaanka aan dhigno dacwadan dhigno urura sameeyo dadka badan ka soo jeeda city baan la hadlay dhalinyaro badan oo city ka soo jeeda dibadda aan la hadlay rag odayaal aan la hadlay
waa laga dhuumanaya waxa moodaysa in laga wada cabsoonaya arrinta laga dhuumanaya laakiin markaan arkay waxa laga dhuumanaya laga cabsoonaya Ethiopia mayna waa Ismaaciil Umar dadkaas waxay ka cabsoonayeen waa nigi hore u sheegay live faro ku sheegay marka waxa weeyaan arrintaasi xasanow inuu Ismaaciil ku jiray ee dadkaas Ismaaciil ka cabsoonayeen baan macaa ugu soo bandhigaynaa dadka sida u dhacday arrintaasi iyo kililka iyo deegaankaasi dhuunyar baa la isku raada inta meesha dhuunyar baa la isku raada canduf iyo cadeyti iyo garbaciisadaasi dhuunyar baa la isku raada dhuunyar sidii loogu daray kililka afarta iyaan soo bandhigaynaa iyana ka dambeeyay iyana sameeyay taa isweydiintu waa taa waxa weeyaan hadaba kililkaasi xasanow meesha deegaankaas dhuunyar waxa weeyaan mar waqtiyadii cabdi iileeye waxa dhacay waxa uu yeeray sheeg waxa la hadlay cabdi iileeye Melesanaawi ninkii madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ka Itoobiya Tigreegi baa la hadlay wuxuu ka yiri cabdi iileeye waxaad samaysaa adii iyo kooxdaada ka haysa buu ka yiri adii iyo kooxda wuxuu sheegayaa waa raggii siyaasiyiinta ee ciise markaasi ku jiray in la shaqeynaya cabdi iileeye ama ku xigeenaa ahaado ama wax kala ahaado raggii ciise ka xeeb ka yiri waxaad u tagtiin Ismaaciil Umar Djibouti baa tagaysiin Ismaaciil Umar baa ni cazumay isagaana ni waramay arintu lagu yeeray buu ka yiri halka taga cabdi iileeye uu la hadlay raggii uu kaxeeyay hebel ka xeebaa la yiri waliba liis baa loo sheegay hebel ka xeebaa la yiri raggii uu kaxeeyay raggii qaar baa halka sawirkooda ku jira hebel ka xeebaa la yiri cabdi iileeye wuxuu sameeyay raggii uu kaxeeyay ragga waxa ku jiray ninka Aadan Faarax la yiraahdo iyo ninka Cabdi Xakiim Cigaal la yiraahdo ku jiray ninka Fuurlabe Aadan Faarax la yiraahdo iyo ninka Wadax Gobe Cabdi Xakiim Cigaal la yiraahdo ku jiray ragga baa ku jiray waxa kale oo ku jiray Xasan oo raggaas ninka la wada ina xaaji carab nin la yiraahdo wardiiqa ku jiray marka sawirkiisu halka ku jiray marka raggaasi waxay tageen iyo rag kale oo Soomaali kale oo kililka ka tirsan sida nin kale oo garraa oo yaa ku jiray nin kale oo garraa ayaa ku jiro marka ahaanayay afayeenka baarlamaanka golaha baarlamaanka ee kililka Soomaalida ahaanay baa ku jiray marka waxa dhacay markii tagay la yiri Djibouti way tageen Djibouti way ka dhaadhaceen markii ka dhaadhaceen Djibouti waa la soo dhaweeyay waxa la sameeyay cabdi iileeye waxa la dejiyay aqalkii uu barxad gurad garayay waad garanaysiin ee madaxtooyada maxay dhahay iskaal ku yaalay iskaal Balanciel hotelka Balanciel ka soo jeeday odagii barxad gurad ra'iisul wasaaraha hore Allah naxariistay uu galayay baa cabdi iileeye la dejiyay raggan kalena waxa la dejiyay hoteeladii magaalada la kala geeyay deganaayeen sida markay ahayd ilaa laba cisho horta jaad iyo kulan baa lagu waalay waxa la kulan siiyay mas'uuliyiin ka tirsan Djibouti kuwa ka socda Ethiopia ayaa la kulan siiyay laba maxay hayday in laba cisho waa la wareejiyay markii laba cisho la wareejiyay cid kasta la kulan siiyay jaadka lagu waalay kadib baa la yiri waxa la geynayaa madaxweynaha Djibouti baa la geynayaa madaxweynihii baa loo geeyay Ismaaciil Umar baa loo geeyay ninkii madaxweynaha isku dhawaaqay baa loo geeyay ninka wuxuu ka yiri walaalow waxa weeyaan waxaan nagu yeedhnaa arrintan nagu yeedhnaa waxa weeyaan inaad saxeexdaan deegaanka dhuunyar ina lagu daro kililka afarta lagu daro yaa nagu yeedhay arrintaas inaad saxeexdaan oo sida ay ku socdo cabdi iileeye cirka uu booday odayga ninkii cabdi iileeye ogaadeen maxay dhahay madaxweynaha kililka Soomaalida ahaa ee Itoobiya cirka uu booday wuxuu yiri Ismaaciil Umar oo deegaankani anu ma fahmay wax meesha ka socda waxaan kuugu imidana Meles baa yiri tagay anu ma yimaadeen meeshan deegaankani dhuunyar waa deegaan Soomaaliyeed buu ciise dega waa run waa deegaan dhul ciise dego laakiin waa deegaan Soomaaliyeed buu deegaanka Soomaalida kamid ah buu deegaan Soomaaliyeed anu ma saxayo halka lagu wareejiyo oran maayo buu marka buu cabdi iileeye iska daashay kada la yiraahdo meesha cabdi iileeye uu ka ragii kale way aamuseen cabdi iileeye laakiin uu diiday arrintaas uu ogolaan waayay Ismaaciil Taani iyo Xasan Saciid baa lagu yeeray oo qaaday oo kaxiyay cabdi iileeye waa la soo wareejiyay waxba lagu soo akhriyay quraan waraabiye iyo wax lagu soo taabsaday waxba lagu soo taabsaday arrintii markay sidaa ahayd ninkii wuxuu yiri cabdi iileeye markay raggii la hadleen buu yiri bal anagu dib baan iskugu tashanaynaa waxa uu yeeray raggii ciise kula jiray maxay hayday sheegeen raggii ciise kula jiray dawladda kililka ayuu yeeray meesha joogay marka qaarkood waxay joogaan marka hadda way la joogaan buu aniga ku sheegay ninkan Cabdi Xakiim Cigaal la yiraahdo Wadax Gobe halka sawirkiisa ka arkayseen ninka kale Aadan Faarax la yiraahdo isna Fuurlabe iminka ku metala federaalka jooga
raggaas iyo nin kale oo maxayday la yiraahdo ina xaaji carab la yiraahdo raggaas oo wardiiqaysna ayaa joogay marka raggii waxa dhacay meeshii wuxuu ka yiri war walaalaha iyo waxa naloo sheegaya ay sameeyana leeyahay waxaan ogolaan karna maaha anuma ogolaanayo inaguna halkeed ka taagantiin annagu madaxweynaha Ismaaciil Umar baan daba joognaa bay ilaahdeen sababtoo ah madaxweynuhu waa madaxweyne Soomaaliyeed madaxweynaha ayaan daba joognaa wuxuu idhaahdo qaraar ku idhaahdo waan ogolnahay isaga maanta madaxweynaha Soomaaliyeed abdiilay waxa uu fahmi waayay wuxuu yiri meeshani wax aanu ka socdo ma fahmaye wuxuu yiri tani toon garanaya maaha aduu markii dambe wuxuu is yiri haddaad meeshani kan adeeg muujisid kaliya bilow gooni lagu xiray oo meeshani waxba lagu tala galay uu fikro waa nin oo uu fikro markaa buu yiri Ismaaciil Umar waan ogolahay buu yiri waan ogolaaday buu hadii raggii ciisaba ogolaadeen anna waan ogolaaday buu yiri marka waxa dhacay waxa la sameeyay raggii way iska noqdeen waxay ku noqdeen sheeg Ethiopia ku noqdeen Ethiopia markii ku noqdeen diyaarad qaateen Cabdiilay isagu dhulkan maraya buu dhul baan sii maraya buu gaari buu qaatay gaari buu ku baxay Land Cruiser ku baxay markuu Land Cruiser ku baxay hadhagaalo maray hadhagaale markuu maray wuxuu hadhagaalo maray Cabdiilay waxay ahayd odayaal saa halka ka garanayay oo si fiican xiriir fiican lahaayeen buu maray oo talana lahaa buu maray markaa buu halkaa maray buu ayuu odaydii la kulmay odaydii ciisuu garanayay hadhagaale joogay buu la kulmay wuxuu ka yiri ii sheeg war waxa dhacay buu yiri arintaa baa la ii soo bandhigay miyaad arintaa uu sheegay wuxuu yiri waxa ninka halkaa baan tagnay uu waramay sida wax u dhaceen buu waramay Djibouti baan tagnay buu yiri waxa naloo soo bandhigay buu yiri casuumadiina loogu yeeray waxay noqotay inaan doonyar ku darno kiilka cafarta sababta loogu darayo sida loo sameynayana waan garaweynay wuxuu yiri Ismaaciil Umar waan ka wargeliyo waxaan iri sheekadani sax maahin sababtoo ah wuxuu yiri anu inaan saxeexo iyo raggan ciise meeshii guli jireen saxeexan waxa loo doonayaa waa maxay buu Ethiopia nidaam bay leedahay buu nidaamkay leedahay waxa weeyaan hadii dhul la kala siinayo deegaano loo kala celinayo kililada loo kala celinayo commission baa jira Ethiopia commission ka baa jira Ismaaciil Umar maxaad anaga nooga baahantay inaan u saxeexno buu dhulkan commission kaasi Ethiopia waa inuu fadhiistaa waa inuu commission kaasi yimaada dhulkan garbaciise waa inuu dadka la sheekaystaa waa inuu taariikhda baaraa marka kadib reportiga ama qoraalku commission kaasi waxeeyo ayaa loo diraa golaha baarlamaanka wasiirka maxayday federaalka iyo kililada loo diraa marka dabadeed baa baarlamaan loo diraa oo maxayday laga wada hadlaa sabab loo bixiyaa dhulku yiri maaha deegaan uu lama yiraahdo hebel oo kaalay oo saxeexa halka ku dara lama yiraahdee sidani sax maahine oo kililkani sax ma noqonayo in halka lagu daray waxba siya buu yiri meeshan inoo macnee buu ka yiri yaan ka yiri buu Ismaaciil Umar marka Ismaaciil Umar waxa uu siin kari waayay Cabdiilay oo meel iyo xabsina uu ku jira berina uu soo bixiyo waa la wareysan doonaa haduu Ilaahay yiraahdo arintaasi wana jecelnahay inaan halkan keenno maalin oo haduu Ilaahay yiraahdo markuu soo baxo aan ka wareysan arintan wuxuu yiri anu waxaan u arkay buu yiri arinta odaydii waxay yiraahdeen sidee wax yihiin oo markaa buu yiri waxaan u arkay arintani inay tahay fidnad ciisi canfar madaxa la isku gelinayo oo dana siyaasadeed oo Djibouti ka jira inaa waxaan loo sameynayo mala sanaawina inuu sida u sameynayo Ismaaciil Umar wax badan u qabtay mala sanaawi inuu darteed isna abaalgud ugu sameynayo wuxuu Ismaaciil Umar ka doorto wuxuu ka dalbaday inuu sameeyo sababtoo ah lacag badan oo TPLF to ay ka kala baxsanaysay Ethiopia wayaanu kala baxsanayeen waxay mariyeen dalka Djibouti baa lagu meeray oo la mariyay marka Ismaaciil wax badan buu qabtay marka isna abaalmarin inuu ugu sameeyay aanu maleynaya buri marka wuxuu yiri odaydii buu waramay Cabdiilay odaydii Ciise halka fadhiyay markuu waramay wuxuu yiri marka waxaan u arkayaa fidnad Ciise Canfar la dhaxdhigay waxaan dhul looma jeedo dhul hadii loo jeedo commission by Ethiopia jira commission ka Maryland baarlamaanka Maryland inta dhamay Maryland waxaan dhul maaha waa fidnad Ciise Canfar madaxa la isku gelinayo Ismaaciil Umar baana doonay inuu Ciise Canfar madaxa isku geliyo sida baan u arkayaa buraano odaydii waa yahay beeradeen waan gaarsiinaynaa muxuu ogaas iyo gandiya cid kasta waan gaarsiinaynaa way ogyiin buu ogaaski iyo gandiya waxa way iska wada ogyiin sheekada waa laga wada dhargsan yahay buri marka waxa dhacay Xasan oo sheekadii waxa marka dadkii halka joogay
kan nool imika odayga la yiraahdo maxamed magare la yiraahdo Faarax Mataan baa kan nool ee ganacsadaha ee waa Faarax Mataan furlaba odayadii uu la kulmay Cabdiile maalintii hadagaala uu kula kulmay Cabdiile odayadu kula kulmay ninka odayga maxamed magare kan nool ee Faarax Mataan dadka deegaankaasi way u tagi karaan way wareysan karaan odaygaas way soo wareysan karaan arintaas inay jirtiin inay jirin marka waxa dhacay arintii Xasan oo markay sidayd Cabdiile uu jigjiga iska tagay warkii halkii uu ku sheegay Cabdiile odayadu ugu waramay hadagaale uu baxay kulliba dadka dad baa ugu dhex jiray Ismaaciil Mare markii warkii Ismaaciil Mare buu gaaray waxa la yiri Ismaaciil Marow ninkii Cabdiile halkan Ciise buu waramay waa ka Ciise buu ku diro ku kiciyay Ismaaciil Umar telefoonku qabsaday wuxuu la hadlay Meles Sanaawi buu la hadlay Meles Sanaawi buu keenay Meles Sanaawi yarkan yar deeblaydan kuma diga qabatid waa ka Ciise buu ugu diray ugu kiciyay arinta halka ku waramay sida baa dhacay Cabdiile Meles Sanaawi baa la soo hadlay waradi maxaa ku hayaa leeyahay wadankan anaga madaxweyne ka waxana waa dadkiisii baa laga yiri Ismaaciil Umar waxaan ku sheegay dhulkan ku sheegay dadkan kilka anfarta lagu daray waa dadkiisii isaga iska kaay xigaan anfar iyo Ciise baa iska kaay xigaan Ismaaciil baa iska kaay xigaan adu ka baxbaa leeyahay hirgeli waxa lagu yiri haddii kale ujeedo kale leedahay baa leeyahay ninkan dan weyn buu noo qabtay anaga ka qashqashin wuxuu doonay u qabtaa leeyahay anaga waxba naga ma gelin dan weyn buu noo qabtay dan weyn buu anaga noo qabtaa leeyahay marka Meles Sanaawi wuxuu fikrayaa TPLF ahaan buu fikrayaa sababtoo ah Meles isagu waxba kama gelin deegaan cafareed iyo ku Ciise isdirray ku dhul isku haystay waxa weeyaan isagu TPLF buu ahaa wuxuuna Tigreeguna dhulkoodii iska hagaajisay intay talada ku fadhiyeen Ethiopia yeesha ama Ethiopia u taliya ma ahayn fikirkoodii waxay ahayd dhulkiina hagaajista bay ahayd si amxaar dib nagu soo noqon iyagu fikir kale iska hayn dana kale wateen arinta inaga na khusaysa iyaga ma khusayn marka waxa dhacay Xasan oo sheekadii waa la isku tagay oo Cabdiile waxa loo soo diyaariyay warqada baa saxiix la yiri ragii saxiix la yiri warqadii waa taas warqadii waa taan sheegayna warqadii la saxiixay ee dhuun yar lagu dhiibay ee lagu daray kilka afarta lagu daray marka haddaba waxaan nii sheegaynaa waxa ugu sareeya saxiixay inta asaanka aan saarnay ee wareegsan waxa ugu sareeya saxiixay waa Cabdiile yaa ugu sareeya saxiixay qofka ugu sareeya saxiixa ugu horeeya leh waa Cabdiile inta goobaabta cas ku dhex jirtaan nii sheegaynaa inta kale waa anfartii iyo amxaaradii dhulka joogaysay TPLF inta saxiixyada asaanka ku wareegsan yahay waa intii ay saxiixeen kililka Soomaalidu ka ugu saxiixa ugu sareeya waa Cabdiile waxa leh saxiixa labaad waxa leh waa nin garaa oo afayeenka baarlamaanka ahaanayay kililka Soomaalida ahaan jiray oo garaa oo reerka garaa la yiraahdo oo maxay ka soo jeeda Gadheera Soomaaliya waxa ku xigayay waa Cabdixakiin ninkii loo dhahay Cabdixakiin cigaal ninkii wada xogod madaxweyne ku xigeenka ka ahaanayay kililka yaa ku xiga saxiixiisii waxa ku xigayay waa Aadan Faarax ninka la yiraahdo Furlabe ee imiga ku jira federaalka saxiixiisii saxiixa ugu hooseeya waxa la ina Xaaji Carab Baale oo waa wardi qisna oo wax buu ka hanay imkaan korka ma xasuusanaya iyo wax mas'uuliyad buu ka jiray marka waa kuwa ragga saxiixay ina Garbaciise lagu daro maxay hayday kililka anfarta Garbaciise soo dhantahay marka haddaba waxa weeyaan صح حسن mid baa ku weydiisanaya kolleyba dadku ka faa'iideystaan mar labaad ugu celi Xasan adoo mahadsan saxiixan iyo dadkii ka dambeeyay saxiixan goobaab kale warqadan ay darkaysiin waxay ka kooban tahay 7 page bay ka kooban tahay waa warqadii 7 bog ama 7 page nimba sidoo uu yaqaano waxa warqadan lagu wareejay Garbaciise deegaanka la yiraahdo Suudago ee city baa lagu wareejay oo lagu daray kilka anfarta Garbaciise waxa ku jiro oo ka tirsan maxay hayday cundufa cadeytu iyo Garbaciise waa dhuun yar meesha la yiraahdo lagu wareejay marka dhuun yar markii lagu wareejay warqadii lagu wareejay weeyana kilka anfarta loogu daray waxa ugu sareeyo saxiix oo inta goobaabta cas ku jirta inta goobaabta cas ku dhex jirta weeyaan inta kale waa dad kale oo waxa weeyaan kilil ka tirsan dawladda inta goobaabta cas ku jirta intan xaggan kale waa kilka anfarta dadka Socday iyo mas'uuliyiin kale inta goobaabta cas ku jirta ay waxa weeyaan waa Cabdiile yaa ugu sareeyo saxiixay waxa ku xiga nin reerka garaha la yiraahdo dhashay garweene maxay leeyahay Soomaaliyeed ee garay la yiraahdo u dhashay oo afayeenka wuxuu ahaa golaha baarlamaanka waxa ku xiga saxiixa labaad ee saxiixa saddexaad ee ku xigay waxa weeyaan Cabdixakiin cigaal ninka la yiraahdo xogod madaxweyne ku xigeenka ahaanayay saxiixa afraad waxa weeyaan
aadan faarax ninka la yidhahdo fuurlabe ee iminka maxay ahayd golaha federaalka baarlamaanka federaalka jooga saxiixa shanaadi waxa weeyaan ina xaaji carab oo wardiiq ahaa oo isna wardiiqa waxa weeyaan saxiixa shanaad marka sidaa baa loo saxeexay warqadii sidaa baana qaraarkaasi ay ku gaadheen labada kilil in deegaanka lagu wareejo muxuu ahaa kilka cafarta lagu daro haddaba xasanow waxa weeyaan su-aasha taala dad baabana soo weydiiyey hadda oo yidhiba su-aasha taalaayey waa maxay sababta uu ismaaciil cumar uu leeyahay dhulkaasi lagu daro kilka cafarta sababtu waxa weeyaan inamada yaree bahfur labe ee waddanka jabuuti kursiga ku fadhiya waxay u qaateen waxan maaha waxay u qaateen waxa u qaateen qof baa noo soo qoray waxa warqadda waxaan dhigi doonaa meeshan Djibouti toos baan warqadda kusoo daabici doonaa waad arki doontiin waanad qaadan karaysiin waxa weeyaan waxay u qaateen xoolo dhaxal ay leeyihiin boqortooy ay u qaateen Djibouti marka waxay sameeyeen inay cadow waxay u arkeen cidda quraatay kursiga naga tuuri karaysa waa ay yiraahdeen afar waan baabiinay oo tajooriyo waa naga sabool gaajo badnay ee budusha ka dhignay ciisa nagu haray ciisa quraato ma naga qaadi karay kursiga ciisa naga qaadi karaa hadaba ciisa saan ka yeelna ciisa aan baabiina ku Soomaaliya jooga ku Itoobiya jooga iyo ku maxay hayday jooga maxay hayday Djibouti jooga baan baabiina baa leeyahay dhaqaalaha lagala dagaalamay rasaastii baa lagala dagaalamay wax kasta nidaamkii baa lagala dagaalamay iyaga dhexdoodii baa xumaan la dhex dhigo oo la isku diray oo madaxa la isku galiyay si ay weligood u fikirin oo isku iiman oo u tashan marka haddaba waxa weeyaan go'aanku kala ha waxa weeyaan ciisi canfarada isku dirraan halkaasi Djibouti way soo gaaraysaa waa tii dhacdayna xasanow ee loo joogay arintii markii ay deegaankii way fikireen dadkii ciisaalka deganaa waxay yiraahdeen war waxaan fidnad kale weeyaan aan iska joogno kililka cafartana ka mid noqono dadkii deegaanka deganaa garba ciiseed waxay yiraahdeen war kililka cafartana ka mid noqono sidan nabad waa ku ahaato way ogolaadeen kililka cafarta u yimid way sheekaysteen war ogolnahay yiraahdeen waan ila shaqeynaa kililkana waan ka mid noqonaynaa iskooladeena Soomaali baan ku dhiganaynaa kuwada leeyay sidii markay iska hayd arintii ahayd waxa la yiri meesha anaga noo dan maaha ciisi cafartaan u geynay kilka cafartaan u geynay way heshiiyeen cafartii baa la yiri anaga noo dan maaha baa la yiri meesha balaayaan ka kicino xasanow balaayadii laga kiciyay waxa kamid ahayd aqalka ogaaska ninka yare ogaaska lagu sheegay maxay ciisa masiibada ka dhex wada PlayStation ka u dhigeen iyo aqalkiisa iyo Maxamed Jaamac Yide isagoo lacag sida waxa marka aqalkiisa dhex jooga isaga yarka yare ogaaska Mustafa ogaas la leeyahay iyo yarka yare kale ay sheeg muxuu ahaa Usmaan Mire yaa dhex joogay yarka Usmaan Mire lagu xidhay halka ba dhex joogay lacag baa halka la keenay shandad lacag Maxamed Jaamac iyo ninka la isla socday waxa amar lagu bixiyay waxa amar ku siiyay Maxamed Jaamac ogaaska yar ina calankii kililka Soomaalida laga taago garbaciisa laga taago ba amar lagu siiyay محمد جامع بأمر كوسي يوغاس كير أو يوري كتاجا عالنكي كليلكا سومالي ده كتاجا بوري ماشاس مركا واحد عي يوغاس كوح الله لعثمان ميرو مركا للجوجي عثمان ميرو أيوك يوري وجوجا عثمان ميرو ولا ويدينا رنتا وانجعلنا كانوا نسوق لو مالين ولا جوا رئيس رنتاس عثمان ميرو وحوك حير دل يردي بربارتا أو إسقي يواكي مركين إسكوسو تصوير ماشا مصلح يرو أو قري سيتي إسكوسو تصويري marka waxay tageen meeshii baa la tagay waxa laga taagay calankii waa tii Usmaan lagu xiray Usmaan Mariya lagu xiray kadib ku xidhnaa Usmaan Mariya wajelkaas waxana dhacay ina meeshii qalalaasa laga bilaabay dadkii baa loo tagay waxa laga yiri waan ka go'aynaa waan la taageerayaa garbaciisa ciisi deganaa waan la taageerayaa meesha waan ka go'aynaa kililkii cafarta waan ka soo go'aynaa baa la yiri Usmaan Mire ayo ciyaalkii barbaartu socdeen waa ku calan ka taagay waa ka Usmaan Mire la qabanayo iyo qaar la qabanayo si sheekadan ay noo soo bixin waa ka cafarta iska haysanayso kililka cafartana waxa amarka telefoonka ay ka heleen in Usmaan Mire rag la qabanayo kuwii kale oo dhan lama qaban intii loo sheegay mas'uuliyiinta kililka cafarta la shaqeynay Ismaaciil Umar baa laga yiri war hebel qabto xira raggii loo sheegay un bay xidheen oo xabsiga geeyeen Usmaan Mire kamid ahaa waanu yeeranaa Usmaan Mire haduu ogol yahay maqlayo halkan maalin baan ugu yeeranaa wala wareysan doonaa marka markii ay sida u dhacday arintii waxay ahayd dagaal ciisi canfarayna la kiciyo way kici weeyday way noqon weeyday haddaba waa kala sameeyay dadkan qalqala waanigi mar hore ka hadli jiray oran jiray war dadkan garbaciisa dadka kullaayay Djibouti way deganaayeen oo lagu beelin jiro lacag lagu geyn jiro randaagtii deganaayeen wajibada Ismaaciil Umar samaystay oo iska leeyahay oo mercenaire iyo rag ciidanka Itoobiya ka tirsan waanigi oran jiray
marka arrintaasi sidaa ay ahayd waxa weeyaan dadkaasi xasanow way iska caddayd meeshan waxa looga gol lahaa ciisuhu waxa weeyaan ciisuhu ina afka la isku geliyo oo ciisaafka dagaal canfar iyo ciisaha ina laga abuuro oo ciisaha la jahwareeriyo iyo ahayd fikirka ka dambeeyay arrintani tii way hirgeli weyday haddana tii baa hirgeli weyday tii ahayd ina ciisii canfar la iska horgeeyo dadkii la qalqalay ee daragtay lagu laayay ee xasuuqa lagu sameeyay garbaciise Djibouti baa laga bilaabay oo ciyaal yar oo ay gacanta ku hayaan boolisku يا دغح ku shiida la yidhi qaarna xaafadaha canfarta qaarna xaafadaha ciisa ku shiida oo madaxa isku galiya dadka sidii kaartaysan iyo xaafada shanaad iyo xaafada saddexaad laga sameyn jiray markii gada buursiga iyo isaaqa madaxa la isku galinayay Djibouti xiisadii ay jiraysay dilac iyo maxay day booroma markii ay sanamto dadka ku laysay gada buursiga ku laysay arimahaas markay jirayeen xiisadaasi daraadeed yaa Djibouti wax wanaagsan laga sameeyay marka waxa dhacday ii sheeg arrintaasi markay sidaa noqotay waxa dhacay imika hadaba waxa la yiri ciisihii joogay meeshani inuu hadaba dhaqaaqin dagaalkii eeg waxa weeyaan dadku jaahil maaha waxa doontid maleeg xasan oo sunta doontidullah dadku way fahmeen dadkii kaliilka city way fahmeen ciisi city waad aragtay wixii ka dhacay waa la isgalay waa la isjeeray buuq baa ka dhacay waxa la ogaaday aqalkan ogaasku inay tahay bay ogaaskan yar inuu yahay iminka waa laga soo saaray marka ogaaska waxa lagu dhaxaysan jiray qonsuliyadda Djibouti baa lagu dhaxaysan jiray halka ku xidhiyo iska dhex fadhinayo lagu ilaalin jiray oo Ismaaciil markuu ilaashin jiray oo rag la shaqeeyaba loo sameeyay oo halka kama baxaynin halka uu talada ku sugi jiray loo keeno ciisa laga sunta halka baa looga qaybin jiray ciisa isaga ogaaska yar baa la dhex marsan jiray yarka yar ogaaska marka waxa dhacay in sheeg arrintii ciisu way fahmeen waana laga godooday marka waxa dhacay inay yiraahdeen war anagu tani ma qaadi karayno maxayday aan qaadi karayno maaha waa ka ay ku dhaqaaqeen ay samaystaan Suudaan marka qayla dhacday qayladii xasan oo markay dhacday waxa weeyaan waxa dhacay imika amarkii u dambeeyay la siiyay ku raagimeyn waqti badan baan hadnaynaa waxa weeyaan arrimo kale oo sugayaan amar baa la siiyay xasan oo yarkii yaraayay hadaba ogaaska lagu sheegay isku sheegayay waa horaba oo laga qaaday cadifada waa laga qaado ogaas ma ahayn waa isagoo baa ku dhagaya waa amar baa la siiyay waxa la yiri cidi ka hortimaada Djibouti amar laga siiyay isaga telefoonka wuxuu ku shaqeeyaa telefoonka Maxamed Jaamac buu ku shaqeeyaa Maxamed Jaamac baa telefoon soo diraa halkuu marayay iyo wuxuu sameeyay Maxamed Jaamac baa u sheega marka waxa weeyaan telefoonkii loo soo diray ugu dambeeyay waxa amar lagu siiyay waxa laga yiri waan la hadalnay Agjar waan la hadalnay ninkii kililka haystay madaxa ka ahaa Agjar waan la hadalnay waxaan amar baan siinay inuu kula shaqeeyo warqad qor u dir baa la yiri marka u dir oo waxa tiraahdaa hebel iyo hebel iyo hebel inaan loo xidhaa la doonaya marka wuxuu bixiyay warqad caynkaas ninkan yar ogaaska lagu sheegayo warqad caynkaas uu bixiyay warqadaasi wuxuu diray kililka Soomaalidu uu diray maxay Agjar jigjig uu diray rag siyaasiyiina iyo doonaya inuu yiraahdo noo xidha ragaasi way naga hor yimaadeen noo xidha iyo rag kale oo odayaal dhaqameed ayuu doonaya inuu xidho Ciisa marka sidoo aragtaa waxa weeyaan xasan oo ogaaskii Ciisaha oo dawladii kale dad xidha waxaan dhaqanku ahaa Ciiso iyo xeerka Ciiso wuxuu ogaaska Ciiso inuu nabadda ka shaqeeyo marka Ciisa la xidho inuu isagu tago dawladdu ka soo daayo yiraahdo war hebel loo soo daa anaga dambigiisa anaga bixinayna magtiisa wuxuu dhimay anaga aan Ciisa bixinayaba imikana isagii baa leba dawladii kale meesha ka tirsanay noo xidhxidha dadka way xasano adigo hadalka ku dheeraaday kulliba hadalku nuxurkiisa iyo meeshuu ku wanaagsan yahay ayaa wax la dhigaa ana yar baan kugu daraya oo dabada ka raacinaya xasano intuu ogaasku dad xidhxidhayo intuu ogaasku dad hoostiisa lagu laayay intii ogaasku dhibaatooyin badan hoostiisa ay ku hoos dhaceen dawladda Ethiopia kiranka ciisaha amba qoomiyadda ciisaha ee Ethiopia degan xasan maxay ku leeyihiin wax ma aragtay iyaga dhinacooga oo ciisaha lagu deeqaa haday tahay dhaka biyaha haday tahay dhaka iskoolada carruurtu ay ku horumarayso amba carruur dugsiyada iskoolada ciyaalka loo sameeyo haday tahay ma aragtay deegaankii oo loo hagaajinayo oo dhinaca daryeelka
مينا كل هين دقالة دولة إثيوبيا ومينا عيسى حسن وايو وحن أركينا مقالوي بدل أو آدفر بدل أو عيسو تجو هديتها لنا على قلبك هي هديتها لنا على سكما إن ضدكوا أي حراك ولايين مدرسة إسكول الآن عيالكوا أي نسكول دقل إدوسية ترين مينا دقالة للسين مينا مرة عيسو رجل مدحتك هديتها أوجاسك عيسى لو دورتي iyo dhaqameedkiisa 12 oday miyayna dadka u hadin haday biyo rabaan iyo haday iskoolan rabaan iyo haday horumar ay rabaan sida qoomiyadaha kale loo dhaqaale gelinay sababta loo dhaqaale gelin waayo maxay tahay qoomiyad ciisa waxa weeyaan xasanow waa aniga ii sheegay marar dhowr ka hadlay in badan ka hadlay cadowga ciisu ku dhex jira dadka ciisa waxa loo tilmaamaa isaaq baa wax ka dhacay gida bulsho wax ku yeelay iyo maxay heeday anfar baa halkan ka soo weerartay weeda kala loo tilmaamaa anagu ku celcelina war ciisa ina kul bareer nilay tilmaamin ee cadowga ciisu ku dhex jira waa anaga nidhaa dhowr jeer ee ku celcelina waxa weeyaan cadowga ciisu ku dhex jira waa afar taayir ay namoode baa furlabeen ma gaarise ee Djibouti ciisanimo ku hantiyay kursigii Djibouti magaca ciisanimo ku hantiyay aqoon kuma hantin kartinimo kuma hantin halgan kuma hantin waxay ku hantiyeen ciisanimo ku hantiyeen warag ciise iska daaya ayaa la yiri waagay meesha fadhiisteen marka waxa la yiri muxuu ahaa sida ragaas weeyaan waxa la dagaalamay kii Djibouti waad aragtay sida ka yeelan dhaqaali Djibouti meel ay mareen lama garanay waad arkay wadankii diimiski dhulkii dirxil galay Djibouti kii sitise wala dagaalameen waad arkaya oo ilaa waxa la gaaray in la yiraahdo laayaba hadii googooraca la gaaray marka waxa weeyaan cadowgu xasanow cadowgaayo la iska dhax saara ma ahine cid wax ka haysata ciise ma jirto oo abdi ilayna lama qabsan karo cagjarna lama qabsan karo kilalka Soomaaliyeed wax uu diidan yahay ma jiro wax uu ka soo horjeedana ma jiro wax uu uga joogaa nin kasta wuxuu uga joogsanayaa iyaga dhexdoodii problem ku jira dibtana waxa ku wadaayay waa kooxda yar ee afarta yar ee bahfuur laba ee halkaasi Djibouti joogta iyo yarkan yar ee ogaaska lagu sheegay weeyaan dibtooda waxa ku wada xasanow waxa weeyaan maalintii garbaciisa la xasanow maxay la qalqalay dadka ee la gowracay la xasuuqa laga sameeyay waxa la waayay afar qof oo isku timaada la waayay dirdhabe oo ka hadasha arinta oo qabato conference press qabata ama shir jaraa'id qabata oo tiraahdo war sidaa baa jirta oo sidaa baa dhacday inta qof baa la cid waa la waayay arinta tiraahdo maalintii dhaweeyay la yiri war ogaaskan yari waan isdhaafinaynaa ciyaal suuqa ee masiibada wadaan isdhaafina la yirina farta lagu fiiqayna waxa wuxuu sameeyay ogaasku wuxuu isku soo ururiyay afar dhalinyaro ah oo reerka uu isku soo ururiyay afarta dhalinyaro ayaa afar qodob iyo saddex qodob baan ka soo saarnay laha ogaasku waa laba taamtaan xeerku waa kani waxaan ku hayay marka waa sheekadii Qadaafi oo kale dam biruuxdi maaragtay wax uu eego kale marka aan waxaan u dirayaa leeyahay Xasan Fariin baan u dirayaa reerka wardiiq ogaasku dhashaan u dirayaa fariintaasi waxa weeyaan waxaan leeyahay inuu yarka yar ee bahfuur labada ay ku shaqaysanayso masiibo faraani gelin inuu reeraha niga horgeyn walaalihiina waxaan sheegaynaa dhalinta uu meesha ku soo ururiyay waaqli celiya aqoon-yahan iyo dhalinyaro hadashay ogaas buu hadlay waligeed ma maqal xeer ciisameyn ay kaga jirto arrintaasi oo dad ay fariin u diraan oo way hadidaan oo waa la dad baa loo diraa hadidaad waligeed ma maqal waa qisad ku soo biirtay waxana waa dhaqankii bahfuur laba ma ahin dhaqankii ciise naqaanay waxaan leenahay reerka wadiiq maxay hayday inuu yarkan yar nasiibo faraani gelin inuu ciise niga horgeeyo doonayaa dhalintiina inuu dagaal galiyo doonayaa ee ka qabsada baa leenahay dhalintiina yarkan yar haduu Ismaaciil u shaqeynayo Ismaaciil uu raaci oo godku galay Ismaaciil uu la gali war uma hayo waxa socda haduu ogaas ciise yahayna maxay hayday sidii saxda dariiqi saxda mari haduu ogaas yahay Ismaaciil samaystay oo ciise lagu laayana Ismaaciil uu raaci hadal male taasi waxa weeyaan dadku iyaga xaq u leh maxuu dirlaba iyo sitina maaha Djibouti oo Ismaaciil Umar kama taliyo waxa dana rag uu kolba dhulku isku dhigaa sida abeesadu kolba dhulku isku dhigaa maamulkii meesha yimaado oo igu dul soco yiraahdaa anay ogolow inaan maxay hayday dadkayga qaniino marka waa sidaas oo waxa weeyaan meesha kama taliyo cid wax ka qaadi karana ma jiro maalintii dhaweyd ba arintii dhacday la sameeyay dadka la xirxiray suldaanka ay sameeysanayeen reerku waxa weeyaan macalliyaruhu wadaxku macalliyar ay sameeysanayeen waxa loo maray wanjel oo dawladda Itoobiya waxa laga yiri dad TPLF taageersan ba halka ku shiraya oo halka fadhiya la yiri
wasta waxay dowladda Ethiopia u tagtay Ethiopia ma dhex gasho dowladda Ethiopia arrimo dhaqameed ma dhex gasho dad dhaqankooga iska samaysanaya oo qodayaal iyo suldaaniyo waxa shaqadooda ma aha dowladda Ethiopia uma dhisno inay suldaanka difaacdo ogaaska yar Ismaaciil Umar meelahan wadwado ee dadka waa la khalday oo wanjal baa lagu sameeyay arrinta marka waxa weeyaan ii sheeg muxuu ahaa meeshaas waxaan u sheegayaa anu mar labaad aan ku celinayaa war ciisow ninkii Ismaaciil Umar city way hiirgali weyday dagaalkii cafartii ciisaha dhici waayay ku ciisaha dhexdiisu doonaya ee wardiiqaan u dirayaa fariin inuu yar ka yari ee ogaaska lagu sheegayo inuu nasiibo farahani gelin inuu naga horgeyn dadka kursi ogaas ciisa iskale haday badilayaan iyo haday deemayaan ba iyaga talada leh ee wax uu afar qof iyo Ismaaciil Umar iyo Baafur Rabay leedahay maaha marka waxaan sheegay yarka yar waxa ka dhaxlaya ay way kiibka Baafur Rabay ka dhaxlaya ciisaanina madaxa la isku galiya la doonaya ee waa ka baan leenahay arinta ka foojignaada aad baad u mahadsantahay xasan waa kaaga mahadcelinayaa adigoo barnaamijkii uu toos yahay inta la daawanaysay inta la daawan doonto waxaan leenahay aad ugu soo dhawaada barnaamijkii Djibouti toos iyo xasan jaali waxaan doonayaa xasan inaan u gudbo su'aasheedii labaad waxa weeye su'aasha labaad xasan suldaanna jiray mar dhaweyd mar hore dhacday laga asaasay dhinaca bari suldaanadaasi waa laba suldaan oo ciisa oo labaduba ay yihiin labaduba mamaasan midna qof furlaba yahay midna uu yahay badraxan labadaas suldaan marka xasanow ciisu haday dhaqan xeer iyo dhagalay ay lahaayeen amba ogaas iyo wada dhaqameed xeerka uu ilaaliya xeerka ciisu yahay wax soo taxana oo soo jiray 200 sano in ka badan sababta maaragtay marka ay sameeyeen labadaas suldaan sababta loogu ogolaaday haday tahay dowladii Djibouti iyo madaxdiisii ragii dhibaatooyinka abaabulay iyo haday tahay maaragtay guriga ogaaska iyo odayaashii sidee u ogolaadeen oo arrinkaasi loogu hortagi waayay oo loo oran waayay ogaasu baa anagu aan lahayn suldaanama lahayn arrintaas wax jira ma aha arrintaas ay ku dhacaysaa waruntaado waxa weeyaan waxa laga caleema saaray xasanow bishii aan soo dhaafnay bilowgeedii waxa laga caleema saaray muxuu guban dhulka la yiraahdo Soomaaliya ciisu deg waxa laga caleema saaray laba suldaan oo beesha mamaasan reerka mamaasan ee ciisa kamid ah lagu caleema saaray labadaas suldaan waxay kala yihiin waxay matalaan qayb kamid ah mamaasan ko dhan matalaan qayb kamid ah matalaan xasan kuma jiro waa xawlkoon waliba waxay u sii kala kacayeen qayb midna waa badraxan midna waa Cabdalla Gadiid weeyaan Cabdalla Gadiid oo cigaal iyo Baafur Rabi iyo isku ah iyo intii kale soo raacda marka suldaanada labadaas suldaani waxa maalgeliyay waxa laga maalgeliyay xagga Djibouti waa laga maalgeliyay in la sameeyo ma ahayn wax ay mamaasan xawla oo reer geeris ay sameeyeen ku dhawaaqeen ma ahayn xagga Djibouti baa laga maalgeliyay lug hayaan lagu qabtay sida darkaysiin xafladaasi waxaan u qaabilsanaa ninkan maxamed la yiraahdo maxay ahaydeen jaamac ali geelle ee deedeega dul fadhiya ayaa u qaabilsanaa mashruucan oo maalgelistiisa markii la sameeyay labadan oday waxa loo sameeyay markiiba waxa ogaaska la amar la siiyay telefoonkii maxamed jaamac baa u dirlay telefoon sidii caadi ahayd ogaaska yarkeer ogaaska ciisa isku sheegay lagu sheegay baa ayaa laga yiri tag hargeysa waa kii duulay break halka ka booday orday hargeysa ka dhacay labadan oday waxa ku jira arrimihii hargeysa laga hadlayay waxa ku jira labadan oday buu qalinka ku duugay inay yihiin labada oday ee Somaliland ay danaha gobolka guban deegaanka guban ee ciisu dago ee Somaliland ku yaal ay kala hadli karayaan iyo yiri kuwa kale waa inay ka dambeeyaan ayuu yiri kuwan ba ayay ku xiran yihiin kuwa kale oo qaalada kale ee deegaankaasi ama odayada kale ee deegaankaasi labadan suldaan ee lagu caleema saaray lugaya iyay ka wada dambeeyaan kuwa kale marka labadaaba uu aqoonsan yahay ogaasku sidaaba qalinka uu ku duugay ogaasku isagoo hargeysa jooga waxaana loo sameeyay labadani waxa weeyaan xasan oo si mashaariic baa socota waad aragtay oo afartii namood ee Baafur Rabi kursiga Djibouti ku fadhiyay hadii dhulkiiba ku soo yaraaday dibadii horta way ka xidhmeen oo dawladda ka wada xidhmay waxa uu haray Djibouti afartoodii qof ma dagaalami karaan dadkiina way barteen hadii waxay sameynayaan waxay isku dayayaan inay meel kasto wax kaga iman karaan ay xidhaan
mashaariicda guban ka socda Somaliland waxa weeyaan ina ciisa xaggaasi lagu dul fadhiisto oo loo isticmaalo isaaqana waanu sheegi doonaa warqad waanu qori doonaa dowladda Somaliland ina isaaqa loo isticmaalo oo dowladda Somaliland loo isticmaalo ciisa halkaas oo odayadani ciddii ka hortimaadaba ay dowladda Somaliland iyagu awood ay wax iyo xiniinyo ay wax ku weeraraan wax ku laayaan ma hayaan isaaqa la doonaya in loo isticmaalo ciisa halka degan wixii wax dhaqaaqa iyo wixii wax diida iyo wixii wax sheegaba loo isticmaalo oo lagu isticmaalo la doonaya halkan sitina xasan oo ogaaska yar baa jooga oo qaabilsan ciisaha baabiisa inuu ka shaqeeyo iyo masiibadooda iyo xirxirkooga iyo burburkooga inuu ka shaqeeyo marka ragani waxa halkaasi looga hadli waayay oo ogaaska uga hadli waayay iyo kuwa gandaha isku sheegay garab jooga uga hadli waayeen sababtoo iyaga dhan baa u shaqeeyay Ismaaciil Umar ogaaska yar iyo waxaan ku meersanay gandagandala leeyahay ayaa u shaqeeyay Ismaaciil Umar sida ay kuwan ugu shaqeeyaan marka waa shaqaale intooduba labada lugahay lagu caleema saaray iyo kuwan kale baa wada shaqaale u shaqeynaya waxa weeyaan wada loo sameystay inuu ciisu afka ka hadli u dhaqaaqina ay ku dul joogaan loo sameystay marka waxa weeyaan xasan gabdhogu ma wada sirdoon bay noqdeen ciisi oo Ismaaciil waxa weeyaan waa wada sirdoon kaabay wada noqdeen kooxdaasi oo waanagii ka hadalnay xasan oo waagii ogaaska yar ku jirayay aqalkaas uu galayay qusuliyadda Djibouti dardaba ku taala markuu dhex galayay waanagii yiri war ogaaskani haduu ogaas ciise muxuu qusuliyadda Djibouti ka dhex qabanaya mu aqalkiisi taga boqol aqal bulay ogaasku sector dhan bulay maxaa u diiday halka joogu tago oo dhex dhigay waanagii yiri meeshani marka ujeedadu waxay ahayd meeshaas uu dhex fadhiyay si loo ogaado dhaqdhaqaaqiisa marka xasan usbuucii ba mar ama laba goor bay dad Djibouti ka yimaadaan rag Ismaaciil Umar ka socda ka yimaada Djibouti oo u yimaada ogaaskan wixii fariina ee loo dhiibay markaa baa loo dhiibaa oo la yiraahdo arrimaha baa soo biiray sidan u shaqeeyo kan samee sababta telefoonadii wax waa laga cabsoonayaa waan la dhageysan bay leeyihiin marka dad bu fariinta ugu soo dhiibaa marka dadkaabu iyaa gaarsiiya warka gaarsiiya ninka yar ogaaska shaqadu qabanayo iyo amarkii ka yimid Djibouti sida baa loo fuliyaa waayo xasanow kulliba su'aal baa daba taala kulliba barnaamijkuna aad buu macaan yahay dadkana daawanayna kulliba ka boganayaan hadaladaada waxa jira nin ciise oo dhabara oo aad iyo aad u wanaagsan oo aadan alaalo la yiraahdo oo magaalada Direedaba jooga oo aad u salaameeyo oo u marinayo TV-ga Djibouti Toos wararka ka salaamayo isaga maadaama nin ciise u yahay oo dhabara oo maanta dhibaatooyinkii ka jiray guriga ogaaska iyo odayaasha dhaqameedka ciisaha banaanka u soo saaray dhibaatooyinkii ciisaha lagu sameeyay iyo shaqadii ay ka gaabiyeen ninkaasi xaaladiisa halkuu ku sugan yahay iyo maanta sida loo joogo warbixin ma ka haysaa xasanow ninkaan ma ogtahay xaaladiisa inuu nabad yahay inay haystaan iyo inay maaragtay haddii tolay qafaasheen oo qofku hadday arkaan isagoo kor u hadlaya waxay yidhaahdeen qofkaasi kama noolaanayno waa nin aad iyo aad dhib noogu haynaya amba laga daba shaqeynaya ninkaas waa inaan hoosaysiinaa ninkaas ciisaha inuu ilaaliyaan xasanow iyo inuu xaaladda ku jiro bal nooga waran xaaladiisa waxa weeyaan xasanow horta anagu ma xiriir ma lihin oo ma wada hadalno xiriir toos ma lihin laakiinse wararkaan helayaa waa leyskan aan ku sheegay ama faylkan la qoray ee ogaaska yar uu qoray u diray kilalka jigjiyo uu diray kilalka Soomaalidu leeyahay rag xidha ayuu ugu magaciisa ugu sareeyaa la yiri oo dadka la doonayo uu ogaaska yar doonayo inuu cagtooda hoosteeda la geliyo ee la baabiyo weeyaan waa siyaasiyiintii deegaanka wuxuu la dagaalamayo marka waxa weeyaan imikahan laakiin war kale oo zaid oo kaay ma jiro si uu iska fiican yahay saan maaynaya waa kii maalin dhaweed kartile laga wareysanay uu ka hadlayay waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta iyo maxay aqoonyahanka la dagaalamayo ninka yar ogaasku imika uu shaqo ka dhigtay buu ka mid yahay aad baa mahadsan حسن waa ku gudbaynaa barnaamijkii waa kusii soconaynaa intiisii kale حسن waxaan galaynaa maasha allah waxaa jira waan ka baxnay arrinta ogaaska waxaan galaynaa maasha allah waxaan galaynaa حسن maasha allah waxaan galaynaa Djibouti waxa ka dhacay mar dhaweyd laanta ama maaragtay ururka tagsiilaha waxa ka dhacay xasanow inay urur la sameeyo cusub oo dawladdu
ay dabada ku wadato ama dowladdu ay leedahay oo la leeyahay tagaasida Djibouti ka howlgala magaalada dhexdeeda xaasatan airportka Djibouti diyaaradahaasi wixii diyaaradaha ka soo dhaca ayay baabuuradaasi taksiyadaasi ay qaadayaan xasan ay geenayaan magaalada marka sidee ku dhacday xasan sidee isku qabanaysaa ima taksiyadii magaalada Djibouti baa la baabi'iyay oo kuwa shaqeynaya إلا التاكسي جيبوتي جوجا تجمع أبا حالديسو أي حد ودرنت هاي أبا باور كيس إيطالو هيسن إنه ده ما درت حاجة جستو أبا موديل كيس ياد وهسيو سيدو ما تنكر يوم مركز تنكر جت أربوركا مركز باور ناس مركز أربوركا سو محل حسنو وردب جيبوتي جاية أفكي حتى لو أفكي جيبوتي قال أربوركا يكاجيني مركز ما تجاسدي كلام لحري بس تجاسدي هراء يكون سوى شغلين حسب أرنتها سيف خبرها والدولة دني مال ولا محرق لك ده أرنتها سيما أمد الجيبوتي والله قلت لك أنت تكسير غيرها كبير لسي عرورها كبير لسي كل ورد دوني كدجنيسي أي كلمة لو يمتحسن بالأرنتها بدو جوكس وحويا حسنا وماشي يعني عندما نحتويهم بالله حري وحقي مقدشي وحقي مقدشي وحويا عندما نحتويه وعندما نحتويه أمبا كل يوم كجفتا أوله وأنيجي أركي لها تجاسداسي هيدا محيجا مال جلسي إن ربورك جبوتا مال جلي محيدا خاصة محيدا مال جلسي بعض الوقت مركب وحنو مالينا يا وتجاسي عيلة هاي ملاها ربورك كلية هاي ولسه في عن ورب وحكمها هينو صوابته لما جرن كرو ماشي وعمل حرام ما فيه أو واحد دولة قرن بعدين عكنا قف قرن ها وحوي حسن تاكسيغا انت دور iyo 20 bayin taxi sasa uma leeyahay jeclaha de dor iyo 20 ka taxi markay airport wada joogsadaan ay banaanka u baxaan ay dadka quraan de dor iyo 20 ka ayaa ma qabsaday magaaladii taxi kale ma shaqeynaya ka dhigata markaas ma dadkii kale ma shaqooyin kale la siiyay misoo waxa la yiri inagu baawradiina iyo shaqadiina wax xareeya shirkadu waa sidaas ilaa isma qabanayso xasan taxi airport ka howlgala oo cusub iyo magaalada Djibouti oo taxigii maskiinka ama maaragtay ninka dooniga ka eegaya ee ubadka ku beelinaya marka taxi cusub la soo dhigay leeyay kaan baa shaqeynaya oo airport ka shaqeynaya haddaan airport ka tagi karin xasan taxigii uu galay soo xasan oo dhib ma hayna markaasi dhibaato ma imanayso xasan arintaas taxigii kale airport ka shaqeysan karaya xasan waa loo diiday waa sax waa runtaada waxa weeyaan كليبا إن صدق وحوم سميان وجد كلي رجعني ماشي جوجا إن إلى رئيس الوزراء بالك إساء منستر كمالية دي تجاه هيد بدموديس شركة بقول قف شقينا يعني فريان وتجاسي وحيد تجين شقينا أنا لهين بالك إساء شقة ما هيو عمل ما هيان وبلا عمل تكسيبا فرينا هذه هلك تاجنت هاي مركا وحويان إن تكسيرة ده بريفير إيش كسم يستي دولة ما سميسو تكسيرة دو بدأ يكتب شركة ده كسم يستان واحد دولة سميسماها marka meeshani waxa ku dhex jiray kullayba lacag baa lagu cunaya waxa alla wixii la sare qaado dhagax hadaa sare la sii qaado maxaan cunaa baa la yiraahdaa dad raggan meesha jooga ina wax lagu cunaa loo sameystay waa adiga arkaya waa ra'iisul wasaarihi dhanaa waxa ku dhex jira ninkii ra'iisul wasaaraha sheeganay wadanka ku dhex jira oo waan furay taksiyaal baan xariga ka jaray haya oo ku dhex jooga marka xasan waa meesha shaqo waxa ma jiraan waxba ma hayaan dadkani marmay waxba haynin intan ba amal laga dhiganayaa oo system wax lagu cuno weeyaan wax la soo kordhinayo faa'iido ma jiraan hadii wax la soo kordhinayo waxa la abuuraa nidaam shaqo loo abuuraa dhalinyarada loo abuuri lahaa ee wax lacag baa lagu cunayaa ويا حسن وأنا ما سنتها ولكن وكأجمع معدلنا كل برنامج كجوتي توس ومدنا داون السنة كل وحنا نجعلها إيه وحنا نكسن نلو ذاقان حسن وكوسي سعوننا وحا حد الله سوى الشيء يا حسن مقالة مقتولوين بحكر هذا إن مقالة نحن سكوية لا قبته شبيلي يحول يتعسبيو سبتو ولبنا مقالة آدي عاد ودب برنامجها dhibaatada ku jirta casano waa magaalada Hol waa magaalo watulooyinkii magaalada Djibouti madax ku hayay aad ugu dhawaa ayaa haraad gaajo iyo dhibaatooyin badan ay ka muuqdaan oo dadkii meesha halkaas soo joogsaday xasano dhibaatooyinkii ka muuqday ee waliba ay lahaayeen xasano waa nasiib darro
حنولاتو مرود المدحوينها إنه عمرنا حنولادا لها هراتك أي شيء هي مدحوينها هي إسلامتي سيهمبلينا مبيه كدورنا يعني حسن أو صفة وحلو بحي حسن way dhici kartaa inay sidaa wax ku heli leeyihiin xasana way jirtaa iyadoo loo sameynayo ismaaciil cumar iyadoo loo sameynayo arkay ismaaciil cumar inamada hadday suurtagal tahay inoo soo daayeen inamada farsamada sawirkaas ismaaciil cumar oo loo sameynayo happy birthday baa loogu qabtay ba hol oo dadkii jobaniska ahaa ama shoomeerka ee aan shaqo haynin baa u qabtay happy birthday anniversaire baa loo qabtay ama happy birthday ama sanad guuro ayaa loo qabtay dhalashadiisa ismaaciil cumar oo gaato ama dolshe ama keeg ninba siduu u yaqaana la soo iibiyey oo magaciisa lagu qoray waa dad hadda shaqaynin waa dad bilaa shaqa oo reer Djibouti waxa sameeyay arrintaasi waxa weeyaan markaas arrinta dadka baa sameeyay sawirka ay namada farsamada hadday noo soo tuuri karayaan way fiicnayeen maqlayaan marka waxa weeyaan waxa weeyaan waxaan arkay waadiga arkay 27 November ayaa Ismaaciil Umar loo qabtay dulshaha loo gooyay dadka haraad baa baabiye dhulkay joogaan waa hol haraad baa dadkii laayay dulshaha inta leegna Ismaaciil Umar baa loo soo sameeyay oo sanad guro loogu sameeyay marka waxa weeyaan talabaad waxa cajiib horta taariikhda meesha ku taala 27 November waagi hore xasan waad garanaysaa dadku waxay jeclaayeen Brisley bay jeclaayeen ninka uu leeyahay Brisley loo oranayay karatega dad jeclaayeen ba taariikhdan 27 November Brisley baa dhashay marka Ismaaciil bila taariikh buu ahaa kii waqti dhow aan ogeynay loo sameeyay taariikh sanad baa ugu qornaa warqadaha Ismaaciil bil maalin iyo bil ugu qornayn oo lama garanayn bishii wuxuu qaatay Brisley buu aad u jeclaa waagi hore marka Brisley taariikhdu dhashay buu qaatay 29 November baa looga dhigay sanad guradiisii waxa weeyaan waa hol waxa laga sameeyay dulshahaas dadku haraab bay Bakhtiyan Xasan waana arkaysaana waxa la sameynayo wadad bila shaqa oo bila biya waxa arintaas la sameeyay marka dadku marka la waa kuwa iraada gaaladu xanuun waxa jira la syndrome de Stockholm qofka marka dishid madaxa ka garaacay xasanow in badan wuxuu sameeyaa qofkii garaacayay uu baahnaa kol kaste oo xanuun bay ku noqotaa ma garan marka syndrome de Stockholm bay raadaan gaaladu marka tiyo kala marka xasanow keegan ay sameeyeen way barsha xasan waan ku maqlayaa si fiican waan ku sugayaa waan ku maqlayaa halo waan ku maqlayaa xasan halo way maqlaysaa xasan keegan ay sameeyeen ay u sameeyeen sanad guuraha madaxweynaha sanadkii uu Brisley u dhashay ninkii karatega filimada aan ku daawan jirnay iyo haraadkan ay sheeganayaan sidaas ku qabanaysa xasan iyo keegan ay sameeyeen madaxweynaha u ciyaarayaan حسن واني كلها واحد جرا واحد ليراد syndrome de Stockholm la xanuun la yiraahdo jira oo dadka ku dhaca oo gaaladu ay sheegaan oo waxa weeyaan xanuunkaasi oday ninba gabdho intuu soo afduubay aqal ku haystay oo aqal ku xidhay markuu gabdhay aqalkii ku xidhay buu sidoo doona ka yeelay uu koray uu leeyay jiray markii dambe way la qabsadeen iyagii baa bixi jiray markii dambe ma xidhnayn silsilad kuma xidhi jirin iyaga iska bixi jiray waxay dooni jireen gabdho kale u soo qaban jireen ee u keeni jireen ninkaas soo isagu sidii iyagoo ka yeelo kale iyagana uu ka yeelo marka waxa weeyaan xanuunka u jira xasan waxa weegtay dadkan inuu xanuunkaas ku dhacay xasan xanuunkaas inuu ku dhacay weegtay oo arintaasi oo xanuunkaasi gaaray weegtay marka uu gelin madaxa laga garaac 4 sano marka ummadani madaxa laga garaacay ee la yiri gaajada waa horumarka kamid tahay dulligu horumarku kamid yahay maxay hayday diimisku horumarku kamid yahay dadkii saa loo baray shaqalaantu horumarka kamid tahay dadkii looga dhaadhiciyay hadii waxa uu arkaan ba maalinba maalintan ba wadanku sii burburayo waxa uu arkaan iyagu in horumar la sii galay xasan u arkaan dadkan okay وما صرت حسن كل يبقى برشلونة جيبوتي قف وحوي حسنوا أم بقول الشداء أم بقولات ليا ما دام حسنوا جبتوا ودك جيبوتي تلحن
maamul xun ayo maaragtay tacaddi badan ummadda reer Djibouti loo geysanayo oo arkaysid dadkii dhalinyarada reer Djibouti oo dhan iyo hooyooyinkii ay mar waliba ay qolo kalba haysato warqad cad waa kii maalin dhoweedna TV soo galay lahaa sanad baan bilaa mishaarna maalinta qofka reer Djibouti khasar oo maalin hore sheego waxaan idhi dadka reer Djibouti waxay noqdeen laba qof qofkiiba waa laba qof maalinta arbacada wuxuu ku oranayaa mishaar la ima sii sanad baan ayaan ciilanahay dowladda baaq baan u diranayaa buu oranayaa maalinta ku xigta ee salaasadan wuxuu oranayaa madaxweynuhu ha noolaaday isagii ooridiisu waan hambalyeynanaa buu oranayaa marka dadkaasi maskaxdoodu ma labay noqotay ma midba mise dadkaasi maxaa ka qaldan xasan oo u baahan yihiin in laga caawiyaa waxa weeyaan waxaan xasan oo maqlayaa hadal odhanaya sug waxaan maqlayaa hadal odhanaya inuu wasiirkii caafimaadka Axmed Rooble uu dhakhtar galay baa iminka la ii sheegayaa marka ilaahay caafiyaan leenahay oo kriis baa ku dhacay baa la leeyahay wax galay garan maayo saas baa la ii sheegaya iminka marka ilaahay caafiyaan leenahay maxamed Axmed Rooble ee dhadan wasiirka caafimaadka jadiidka taabaa jirto oo la ii sheegaya marka waxa weeyaan xasan oo meeshani waa kii hore aan uga hadalnay dhowr jeer rag badan ay ka hadleen inaa meeshan gacan loola taga maayna si kale oo lagaga baxayo ma jirto xasan taana waxaan jecelnahay inay cadaankani meesha ku celinayay ay faraha ka qaadaan raggan oo inoo baneeyaan meesha cadaankan baa naga horjooga afarta yar ilma baafuur labe ee faraha ka qaadaan waxaan u malaynayaa dad baa doonay inay telefoonka soo wacaan baan u malayn xasanow dad baa soo qoraya haddii doonaa soo yar galaan maasha allah khadka telefoonka usoo yar dhiga dadku ha yar neefsadaan naqaska ku dhejiseen ummadda reer Djibouti waa dad naqaska lagu dhejiyey marka dadku ha iska neefsadaan anagu maniin idaacadda Djibouti dadka naqas ku dhejinaysa idaacaddaas ma furi karayaan telefoon wala xidhiidha rag badan ba shaqada laga heli saaxiib dad badan oo wariyayaal dibadda joogan xasanow صح ka baxsadeen shaqada waxa kaloo xasan oo ila soo xiriiray oo soo geli doona rag colonel gendarme aha colonel police aha commandant aha iyo ila soo wada xiriiray xasan oo aad baan uga xumaaday wallahi billahi waxa ku leeyahay xasan oo hadalkiina iyo barnaamijka mudiin aad baan ugu dirsanaa maadaama ay dawladdu ay si kala wada socotay annagoo dawladdii retreat gelin shaqana naga erin iyo ka wadanka ka wada baxnay waan uga baxnay maamul xumo iyo meeshii oo si kala u socda oo afar nin oo iyagu tashanayaan meesha la isku wada diibay qof kale la ogolay ayaa lagu wada baxnay laakiin maanta wixii oo dhan baan annagu aan sheegi kari weynay amba aan ka hadli kari weynay iyaad ka hadashay ta kale xasan oo kugu daray kale waxa weeyaan dadka ummadda la daawanaysa hadday tahay maaragtay TV-ga hore ka hadli jiray ee Sahan TV iyo hadday tahay Djibouti toosba xasan oo waxyaabo badan oo waxa jira oo inta badan aan kuu sheegin dadku ila soo xiriiraan iyaga ilaa xasan daaliye maadaama xasan sheer aan helay wararka aad ku siinayna waa hambalyo lagu soo diray adiga oo lagu leeyahay kolku dadku inta badan waxay ku arki jireen qof qalooca qof wax uu ka hadlaya iyo qof maaragtay sujeega iyo barnaamijyadiisu ay aad u qaldan yihiin laakiin maanta waa lagu wada raacay rooliya cananu hadday gabdho yihiin sujeegaaga baa la raacay hadday yihiin maaragtay raggii odayaashii والموضوع راعي حسن ومركا حنبلي كل احسن كل التليفون بس وقال صوت منيح الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا وراك انا صدقني اي ورا وافي عنا الحمد لله. والسؤال شيء كوباد waxa weeyaan hay ana waxaan malaya maalmo dhow waxay kulmeen madaxweynihii farmaajo iyo EOJ qadar bas ku yimaadeen ma jeclahay hay marka wuxuu jeclaystay inuu la kulmo farmaajo ay ogaado siyaasad ka wada xajoodaan waayahay
waxaan sidaan meediyaga ka hayade lacagtay uu ku hesheeyay wuu diiday ninka farmaajo maxaad ka ogtay xasan sheekh xarado iyo xasan daliye maxaad ka ogtay dalka marka waa maalintii dhaweyd ee qatar waqtiga madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo Soomaaliya صح waayahay waa kaaga jawaabaynaa su'aashaas waa lagu siin kulli ku dhageyso waa ku celinaynaa su'aasha waxa weeyaan waad maadsan tahay qofkan la soo xiriiray wax badan kama ogin anagoo been ku sheegaynin wax badan kama ogin laakiinse waxa nagu ogaalaa waa run inuu la haduu doonayay uu la fariisto kullayba de wax dana ma wada Ismaaciil Umar waad iska garanaysaa qof markuu la hadlayo munaafaqad iyo inuu balaayo uu qasam mooyaan wanaag ma hayo nin tiisiisa daryeelaa to kale ku daraa la yiraahdaa Djibouti waad aragtaa inuu dirxigalay dhulkii marka farmaajo uu bartay ninkan shaqadiisii uu bartay gidaar buu iskaga xiray waxa la yiri waqti kuma haynaa la yiri anaga shaqa nagu socota waqti kuma haynaa la yiri lamana ogolaanin sheekadu wada lama ogolaanin waqti doorasho lagu jiraa inuu wax qasoo doonaya oo sheekada yareedo bila macna ugu wadwaday inuu wado marka waa la iska diiday way jirtaa nadaaba la yiri waqti kuma haynaa la yiri xasano waxaan su'aal kaaga weydiinayaa halka aan ku yar noqonayaa qatar markuu madaxweynaha maxamed cabdilaahi farmaajo marka loo yeeray madaxweynihii Soomaaliyeed asagana casuumadu ma loo fidiyay mise uu soo doono isagu wax weeye waa daqsifood ku dhacay waxay xasan oo xafladda meeshan ka dhacday qatar ka dhacday waxay ahayd dawladda qatar waa ta koobka adduunka ee qabanaysa kubadda cagta waxay iminka qabanaysaa oo wada tartan kubadeed oo wadamada carabta ayay wadaa marka madaxweynayaashii wadamada carabta qaar bay u yeedhay dhowr bay u yeedhay oo Djibouti kamid tahay Soomaaliya kamid tahay wadano badan oo carab u yeedhay halka ku casuuntay marka xaflad kubadeed baa wuxuu tagay meesha oo Ismaaciil Umar waa dadku adduunkii baa ka xirmay cid la sheekaysatay iminka ma jiro waxa weeyaan waxay gaarsiisay tala waxay dani waxay baday ilaa Ruush iyo Shiina inuu ku wareego Shiinana waa baabadu ka soo xidhay iminka Ruush uu wareegay marka ma hayo tala kale oo dhulka dhan baa ka xidhan marka meel banooni ama kubad lagu qabanayo waa inuu tagaa ka muuqdaa hadii toole Ismaaciil Umar si uu yiraahdo uu jira madaxweyne loo yiraahdo marka meeshan xaflad waxay tartankii kubadda uu furayo carabta ayuu tagay waa meeshii koobka adduunka lagu qabanayay saasaa dadka loo casuumay aad baa u mahadsantahay xasan waa kaaga mahad celinaya kullayba xasanow hawshu hawlba hawl bay dul saaran tahay Djibouti waxay u baahan tahay xasanow waxyaabo badan oo ummadda reer Djibouti in loo qabto ah oo xagga horumarka ah xagga maaragtay tacliinta xagga maanta maaragtay Djibouti oo korontadii xagga maaragtay magaalada oo dekadihii oo dhan ay baaba'een xagga asaanismaagii oo ogtahay xasanow roob markuu da'o ina magaalada Djibouti meel laga maray ay jirtay ayna jirin oo magaaladu noqoto meel uu daad soo galay ama magaalo ay u ekeyd sidaas uu dhex joogaa madaxweynaha isku dhawaaqay ee kelidii baratamena magaalada Djibouti xasanow oo biyaha iyo maaragtay roobkii meel laga maray laayay xasanow iyo khasrigiisii madaxtooyada iska dhex fadhiya ninkaasi xasanow ma matali karaa in madaxweynaha oo dadka mas'uula ummadda reer Djibouti maya xasan ma matali karo oo ninkani nin madaxweyne la oran karo mayna waa nin isku dhawaaqay oo saarfaysiin oo afar gaaladan ay nagu xajinayaan uu isagu wax la cuno uu sheeg wax maxaan xadaaya maxaan cunaa mayna maxaan horumarinaa ma jirto Djibouti waad aragtay wax la horumariyo ma jiraan maxaa la cunaa maxaa la xadaa واي حسن ما مقش حسن وكم قضايا سيف يعني حسن جيبوتي سؤال كده كوسو قبقبين حسن وحويا ما دام صعنا وقت وناكسن waxaan doonayaa xasan inaan kusoo gabagabay Djibouti xasan mar waliba maxay uga dhacdaa ceremony ama maaragtay heeso iyo xafladi iyo waad ogtahay fanaanad kasta oo dalka dibadiisa jooga hadduu Mareykan joogo iyo hadduu Yurub joogo inay Djibouti ay noqotay meeshii Qatar ee lacagaha loo doonanayay oo lagu hobanayo ummadda reer Djiboutina ay dhalinyaradii ay shaqo abuur loo sameeyay dhalinyaradii ay shaqo haysan dalkiina uu burbursan yahay magaalada Djibouti ay mar kastaba madaxdu ay fanaaniinta ay siinayaan lacag aad u fara badan xasan mayna dhibtaasi ay soo noqoneen ay mar waliba ay soo laalaamata ummaduna ay mar waliba ay ka dabqaneen leeyahay xasan oo dhibaato ku hay dalka Djibouti waxa weeyaan xasan oo maqabana soo ayaan ma hayn xasan wala السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوف حاج عمر سودو حاجي وك سلامنا واني سلامي لبدي ما حسن واني سلامي جبوتي توزنا وان سلامي وان ما سنتين بردوهي شو قلنا فرادي مالك لفتنا السودين يسين تتساقوح ويفتي من يسين ومطر الصومالية هذه أكبر ما سنتين إما كوردك دقاي صوت داري أنا نقرأ قيب كلام دوني كسعو حاج عمر أرنتي درنا بكت صوتي أبتلي هذا عليه وحوي هذا قف معين وغيرك معين وغير معين هذا على قوة كذا شيء قومت عيسى جلبك ولا دونك حيرك عيسى قومت إلى عيسى إلا قوي راح أنت لا ولا بحير قوي لا يلا إلى ويجان ويجري هاي وحيرك وتبي وضيدي يجوا بين نقدين وقبل كينا وكبيري ولد بكم المن وأكيد أرنتي لو وضع مخلي مركا إما كواحد مخلي تريد يدقو مدعوينه كويدينك ويسجل بهين وقاسك ولو حمل إنه وقاسه كده حلو أيام من دمجال الدير دوا وحقوق ورقات ما أمر الدير هو بديوري أنا على دولة الفدرال كررتها ما أمر كدقيقة ربع نص وحنا محكمتنا ورقات ورا توجويا حتى وحى السوق ورقة اللي جاي هذا لا والله حلي مانتا قلبت على حتى إليين مركا وركا إنه رؤيا إنه بنتاي وحدات كم غشينا مدتنا دقيقتني السوق عاديان هذا أرجع يرون دعوه وش كرامته بالي أضيعه كرامته بالي إيه سنة وما له تودم بسوق كلا تجي ترى تتابع باجرة مركا أرمها وحن وقد جيا أنا عمر أولا وما ركضت كحيرك يا قنانا تقبل حيرك الجسمي جيت كهبكو باي ما كناش أنا كناش إنا السمان يوانا جاي وضيعه حقوق الماينة هذا عسكري كدقان الحب استعمالان إيسا كلا ديريا وقال سوريا المرقع إيسا الله صدري إنا كلا ديران هذا يارن كارونتا إنت أساني عني شكرا بي ويا عمر ويا عمر سؤال باكوديني يا anigoo waqti aad nasiisay aniguna aan jecelahay inaad su-aashaadii aad noo dhigtay amba markii aad noo soo tabisay aad iyo aad ugu mahadsan tahay oo kaaga mahad celinayno anigana su-aal baan kuugu darayaa xaaji cumar su-aashaasi waxa weeyaan xaaji cumar maadaama oo jabuuti amba maaragtay dirdhabe amba magaalada maaragtay saylac amba maaragtay lagu haye ciisaha degan amba jabuuti amba galbeedka haddii ciisaha mar waliba kii hadla ciise u hadla hadduu uu yahay qof wanaagsan qof indheergarada iyo qof aqoonyaana sababta looga hortagayo loo xidhayo amba loo dilayo maxay tahay markaa haw dhegleydii ciisaha haw xeerkii ciisaha haw guddidii ciisaha haw ogaaskii ciisaha halkuu markaasi arrinta ay ka baxday ciisaha xeerka ciisaha baadiyuhu نقم باجرة أورتوا أور كرال بالغاكاتا حركة إيسا ولا كرايتي أور كرال واحد قد ينتهي صدق رير وجارة لو رير با أور هايستاي كبوران كل كرير كبوران أيو خفراء وكسر ماذا لو رير أور وسو كبوري حركة إيسا واحد كبورة رير كلا يو ركلو ما ملايستا هو إيسا شيئا يا يخوانا إيسان إنتبا كي حيركي إنو جوجينيو أما حيركي ويلاني اللهم ملايانا إنا وضد لغتارو أي جوبتا مركا حيركي إيسان والا كريتو أو كرال بالغدك أو كرال ويا سؤال شو بدهم بس كاجا من عليو سبب واحد حاج عمر dad badan oo ciise oo ka soo gala baraha bulshada hadii wareysiyo laga qaado iyo hadii toos u soo galaan maaragtay khadkooga aba maaragtay facebookooga waxay yiraahdeen ina lagu xadgudbin maaragtay xeerka ciise ina ogaaska lagu xadgudbin ina wada dhaqameedka lagu xadgudbin oo dadkaas waxay yiraahdeen dhaqanka iyo xeerasha ciise naqaana dadka baraha bulshada ka hadlaya ciise wax ka sheegaya way qaldan yihiin dadkaas maxaa ka oranaysaa وحوينا نبغى قاش ما حينو ما نقدر هذينه
laakiin ogaaska dulun wadana kuma raaxayno oo dulunka kolka diinteena qur-aanka waxaa la yidhi nabigeena asxaabtiisa ku yidhi u gargaara kala wax dulmaya iyo kala dulmayaba asxaabtii baa tiri nebiyow rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam kala dulmaya daan u gargaarno waan caawinanaayo allah ku gargaaraan odhanayna ka wax dulmayana maxaan ku nidhaa waa ka joogso dulunka waxaana waa qalad kolkaa tidhahdin nasiixaad siiseen buu nabigeeni marka odayadu maanta siyaasa wata ee dowladdii soomaali wargeelle dadkeegii oo siyaaro dhiganaya qalqashay ee gargowracday kama duwana markay odayadu maanta dadka xidhayaan ee xeerkii ciisaan ku xidhaynaa leeyihiin xeerkii ciisaan way ka tallaabsadeen waxaan leenahay xeerkiina kusoo noqda xeerkeena waa la wada fadhiistaa wargeedka igu soo dhaadhac waa la isla korfeeyaa qofka lagu baanaya iyo ka baanaya aad bay samaysaan qofka la baanaya iyo ka lagu baanayna ma hadlado qof baa aabbaa buu soo dhigtaa labadabaa garkii goys markaa baa laga saaraa dadka oo guddida ayaa korfaysa go-aankii oo go-aan baa lagu soo celiyaa sidaan anigu geedka aboqo ee 12 geeda ciise ayay ku jiraan geedka aboqo aabbaayna ku dhashay annaga ku dhashay hadda gaala dusheedu ku yaalla xeerka ciisaha wuu jabay odayadii ogaasku maalinkay booliiska xataa abdallah u dirteen way jabiyeen markay gegada adhiga dad ka soo gureen ay odayaal uba qalmayn oo jaadkii cunay oo sakraan soo kaxaysteen xeerkii way jabiyeen war xaqa ku soo noqdaan leen dadkii aadaabbaha u haydeen ayaa dulmaysiine ka joogsado dulunka joojiya ilaahayna nagu arkay annaguna waan arkaynaa waanan u gargaaraynaa siday xaqa ugu soo noqdaan waayahay su-aasha u dambaysa ku weydiinaya adigoo kaa caawa aan ku helay oo ku faraxsanahay inaad barnaamijka mar kale aan ku casuumo ood soo geshid waxaa kaloo ku weydiinaya su-aasha u dambaysa maadaama oo anigu sidaan qabo amba sida aniga aan fikirkayga u yahay ma u malaysaa sheekh cumar inuu ogaasku yahay ogaas aad u dhalin yar oo la qafaashan karo amba maaragtay isaga uu u baahan yahay gargaar in la gargaaro oo hadhow toole uu odhan doono aniga waa lay haystay oo meelaan ka baxaan la'aa oo xoog iyo waxbaa lagu muqureeyey arrintaasi ma ina dhici karin ogaasha anigu muddo dhowr mar baa la kulmay waa nin intelligence very smart ah waa nin aad iyo aad dhinac kasta buuxa macliin leh ogaasyadeenni warbaadiya laga soo qabanay kani maanta isagiyo weliba akhriya wax facebooka sidaa imika live buuna daawanaya waa nin wax qarista baraha bulshadana ku jira wuu la socda waxa socda boqon maaha waa geesi laakiin isaga xoogaa lacag yar baa lagu abuufay meelo kaloo maamulka dirdhaba maamulka digdiga maamulka adisooba meelo kaloo laga abuufayna way jirtaa oo suguda duuduuba kow maamulka lagu xamanayana waa jabuuti laakiin ogaas ciisa tahay maamulada ogaas sumadkii maamul wixii waad ka baxsan tahay wixii maamulkaad dulmo iyaad adigu u dhexdhexaysaa dadka la dulmay maamulkaad u dhexaysaa laakiin dulunkii qayb ka noqoto ogaasku marnaba ma dhacayn ogaasyadeenii hore ogaas mustafafana nin loo gaban karo oo aqli yar maaha odayadan caadilqaatee la joogana iska arkaya isagaa ku danaysanaya isagaa iminka odayadaa uu diraya oo dadka xidhxidhaya isagu wax ma anu kuma jiru leeyo meel buu iska fadhiya marka laakiin eetu kama hadayso waxaa la yidhi inanka horroone odayo horroonaa loo diro xidhay ogaaski waa la falgarisoon ku xidhaynaade kii reegeediya oday reegeediya loo xidhaya loo diro xidhay aadan laga iminka odayaal waladoona loo diraya oo xidhaya waa geem kii ismaaciil iyo cumarkii la ciyaarayay oo reereer isku dilayay oo la farsameeyey un baan anugu arkayaa ogaaskeenii odayadana war karaamada beelina ciisana waa maalinta u dambaysay uu hadeetolo ogaasna samaysan kalena isla yeelan waa lagu kala dhaqaaqaya arrinta haddaad ka joogsan weydiin yaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay xaaji cumar waa kaaga mahadcelinayaa intaad barnaamijka nagala soo qayb gashay waxaan ku leeyahay aad baa u mahadsan tahay habeen wacan oo wanaagsan arrinta kale koolarkii iminka ku soo weydiiyey aanu iminka nin jooga qatar baa la xidhiidhay arrintu way jirtaa madaxweyne ismaal cumar jeelle uu garab fadhiyaa farmaajo waa la garab fadhiistay hadal buu yidhi farmaajo carabtii iyo madaxdii oo wada fadhida ayuu yidhi dhibtaad noo geysatay dadkii geeda lagu laayay
كيني نجر عليه يدل كان نجر عليه دنا الصومالي نيجي لما قال لي كتير دول كانوا جيستي إلا الصومالي والشيط وحيان كقدرنا يوجد أرتي جد إلا الدري حجير كانوا ذا كيني الراعي دم تذكر عليه أنا قدام ما أنت نوما كارين شعب جريج وتوال عليه هذه وسي هذا لو نججوب وانكو أرجني وانكو برني أيو كيدا لي أرجع ولا يكمل aad iyo aad baa u mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaynaa xaji cumar habeen wanaagsan oo wacan dib baan isku maqli doonaa hawadu waa ku aad iyo aad baa u mahadsantiin jazaaka allah khayrakum hawsha iyo halgankaad wadiina aad baan igu faraxsana labada xasan dadweynaha na dhegaysanaya ee meel kastoo joogana ciidanimada waan wada leenahay xeerka waan wada leenahay waxaa la odhan jiray xiisuhu saddex buu wada leeyahay marka maanta ogaaskii iyo xeerkii ما تذكر يمني عيسى ولا لا عيسى وإنا ولا إلى شنو هير كنا وصح أنت أنو هاللينو يوحي عندنا إنه وعيك حيرك عيسى ولا وضع لها شرعي ولا وضع لها دقنك ولا وضع لها وقاسك إيو جددا إيو ما رتي لبيه تروح ولا وضع لها لكن وحن قولي ده الله يشبع لقد قال ما يقول الدنيا هي حاج عمر وها بقدر حسن أيام دويت شركة قضية واحد كدم بيه ده اللي يربى مجال دري ولا قصة ورولي خايف حجرة أيام بقى صوتها كافر بقى وإحنا نقولنا يا بقى هي جدي بركي عاد بيلي بيجيبوا وكشرة جروب ده اللي يروحون يبقى صوت سري أنا أركاوجات كذا ولا سوى الصحينا يا حاري طاقة على التمر مرنا يا وأركض جوب سدع وبس عيسى سبعي ماتوا ويخلد عيسى تروحان بعيو لكن أنا لا أوريكم أوجات كلمة تعاون كرو حير كلمة تعاون كرو وحير كوبكا مال بكا على دوي صح مال بكا ما خد عليه على دوي راح يكون جدا ولا هذا ما حب قبل حلو هي التعدي هي الضب انت الكبراء بالشارع كنا علينا عيسى واللوجو هنا يعني حير كميل علينا يعني حيرك وحويا حيرك وكلسوني وهو الجر لا كل ليه ما هنا قلب حب وقم غني ما راح يسارتها كم نجر كهير كين هذا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويا حسن كل برنامج وسوق بقبلنا حسن كل وكان مهد عليا ولكن كل حاج عمر والمغلسي كل فكر كيسي يوم مرتي هذا لكم نقول درسدي كل هذا خد درسدي حسن هو يهدي سوق بقبل لبضوا بعض يكون تعالى ولكن كان مهد عليا كسعة وحويان حسن وانو هذا الكي كمان ضمنت يكون درسنا وحويان وحن لي هي دتك الستي بان لي هي دقن وجاز كيري waxaan ku shaqaystay waa baafur laba inay masiibana dhaxdigin ee arinta ka fiirsada arintaas aad baa u mahadsantahay xasan waa kaaga mahad celinayaa kullayba waxaan jecelahay inuu soo geliyo waxaan ka hadlayaa abwaanka khadiir cabdilaahi daaliye oo soo wada heestii maadaratay Djibouti toos ayaan jecelahay sawirkiisa inaan la soo geliyo abwaankaasi oo aad iyo aad دولة جيبوتية أو هي سبب دولة جيبوتية دولة جيبوتية سبب كله خدير عبد الله دالي وكله دك وين وده جريان نحدي عن قصة حاصل على كله بأبواب كاسي وأبواب غير جيبوتية وآدي دائر ودولة جيبوتية جوجا مجالات يوروب خاصة وجوجا وده كإسويدن خدير عبد الله ولا وده قناة وهستي وسمية مركي هراء TV aan ka hadli jirnay aniga xasan jeer aan wadi jirnay barnaamijkaasi oo ahaa Djibouti toos weeyaan imika waxa ku jira laakiin TV-gaas wuxuu ahaan jiray Sahan TV ninkii heestii Sahan TV sameeyay waa Khadiir Cabdilaahi waa abwaan aad iyo aad ummadda reer Djibouti uga qaaliya heesa badan aad u fara badanna dalka Djibouti kule oo idaacadda Djibouti ka soo baxa oo fanaaniin badan aad u qaadaan fanaaniintii hore iyo kuwii dambaba kuwa dibadda joogana xitaa way ku qaadaan si Khadiir Cabdilaahi daaliye kulliba hadii aan niduubanayna waa nin aniga ila dhashay oo waliba iga yar aniga weeyaan kulliba anagu haddaan nahay reer daaliyana waxaan nahay dad aad iyo aad ugu dhiiri galiya ummadda reer Djibouti dad ummadda reer Djiboutina jecel baan nahay deegaanka Djiboutina u dhashay magaalada Djibouti khaasatan
magaalo madaxda oo Kartesiis marka waxaan jecelahay bulshadeeda inaan la helno waqti fiican inay helaan ummadeeda nolol iyo waqti fiican dadkeygana waxaan mar waliba aan ugu hegelnahay oo ugu dhiiranahay inaan garab joogsano habeen iyo daraar way naga go'an tahay ما شاء الله وأنا قفر حسن هاي حسن واسوق بقبية برنامجي أدبال كاجم هاد عليا ما حد رأي حسن أبوي كاس أبوك وحنا يوم ما تسيا وصار كتبه هستي هراء سهن تي في سجى نوم حقيقة هيد إمن كان هيسكل النوضة ومرة ونص صار دونا مركا هيسا بدل جيبوتي وآد عانو أضدقوا وسميه بجري سجى أبواني وين كويسين الله وين مركا وحنا هاي هالكا كود waxaad ku daraysiin ku dar fankana ka seexani wad fanka waa loo baahan aad baad ma asantay xasan sheekh kulliba isagana waan abwaakan waxaan leenahay kulliba waxaan kugu rajaynaynaa waqti fiican iyo waa cusub kulliba waxa tahay abwaan jira oo reer Djibouti maadaama abwaaninteeni qiimaha badnaa qaayaha lahaa ee waaweynaa ay waqtigii ay qaateen oo xaqii loo badnaa ay tageen oo iyakana u wada ducaynayno leenahay ilaa ilaah wa inna ilaahi raaji'uun ilaahu midigtooda u saar kitaabka jannadoodana ka waraabi baa leenahay abwaanadii Djibouti ee wanaagsanaa heesaha waqtiyadii maaragtay gumaysigii soo qaadayay iyo waqtiyadii dambaba ee fanaaniinta u curinayay heesaha Khadiir Cabdilaahi wuxuu weeyaan waa abwaanintii buu ka qaatay maaragtay raleega isagana waa abwaan aad u yar oo heesa badan dalka Djibouti ka soo baxan idaacadda Djibouti fanaaniin fara badan ay ku qaadanaysiisa oo inii soo gelin diro برنامجو وقتها دبي أن نيجا دهيجونو ما شاء الله حسن كل ما أدبوا مع سنتهاي ومدنا داول السائية أنت نداول دتلو حلنا وما ستين داولنا يلو حلنا أدبوا مع ستين صور قادها صور هذا يعدد كنا يسوي تبين سجن أدبوا مع سي هاي دمان جيبوتي ورنا وصو سلامة أنت بقتنا وحلنا الله عافية أنت عارف ما قبتنا الله سيادي علينا هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته